السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا ليال ملك استودك كلا جوكتان الدنك الدعالة ديسا دمانتين ويل يقبض الرولي عن نوكبا وإذن صوت السلامية وقت قهنين وعنادو إلهي نهاية وضع حفظه وانيقو مركا ليدي كسو النقضي سيدي عادة إنو هايد موقال عصوبا إذن سيدا مركز توحان إذن كان حق سوغان وحان بينيا كتيركوتينهان doonaya dadkan doonaya inay ku tiri kuteenaha iyo xogtan beenta ay ka soo baxaya sirdoonka Djibouti ee soo dhex marsanaya idaacadaha beenta ah ee laga dhex furtay baraha bulshada sidii daf looga heli lahaa iyo sidii caan loogu noqon lahaa waxa haba yaraato dad la jeclo kale shacabka dantooda u wada maahin wax ka bedelayana maahin xaaladda ay ku jiro waxaan leedin hor keenayo waa ku tiri kuteene waa dad aaminsan oo doonaya inay niga dhaadhiciyaan in taliskan waxa u shaqeeya in wanaagsan oo isbedel doonaysa ay ku jirto iyo in xumaanta inay sii socoto ay jirto waa been waa sidii ka soo qaad matalan adigoo oo bulsho dhex taga la wada ilaayahay il qura la wada leeyahay adiguna labadii indhooda qabti indhahaagu ay ku buuxaan ama aragaagu u buuxo dib baa lagu arkaya ilaa sida lagu aqbalo ugu dhex noolaatay si nabada waa inaad isha iska tuurti kolka nin kasta oo daacadaha markii hore taliskan marka uu la shaqeeyay daacadnimadu ka baxay hadii tuug calooshii shaqaysta ah maadaama ay u damqaneen diimiskan ay ka damqaneen uska gan iyo kaadidan magaalada dhex socda wadooyinkan jajaban noloshan qaaliga ah maciishadan liidata ummadan la cadaadinayo ee gaajada iyo cabsida lagu xukumay maadaama ay ka damqaneen ee jeebka u buuxsanayaan markay gacmuhu isgaarana la xidaayo ama la dilaayo oo kadibna lacagihii iyo meelihii ay dhistaan laga qaadanayo haddana waxa weeye waxay doonayaan in ay sii socoto inay sidan ku jirto waayo dambe ku qabaan nin kastana wuxuu u tartamayaa inuu noqdo jaariyad iyo dabadhilifnimo waa meesha qura laga lacageeyo ee laga noolaado amba laga neefsan karo laakiinse mid baa la ilowsan yahay dhammaanteen saan wada dhannahay xanuun la idhaahdo le traumatisme intergénérationnel baa na wada haya xanuunkaas haddaba sida aad ula tacaali karti nin qaar baas kontrooli kara qaarna isma kontrooli kara inteen u badani waxaan u orodnaa xogtana loo soo tuuray beenta meesha ay ka socoto meesha aflagaada ka jirto meesha isku dirka iyo kala dirka laga dhex wado waa inta uu talisku soo tuurayo wado ayuu mataqaanaa ayaan u orodnaa oon dhegaysanaa taasina waxba kama bedisha nolosheeni ee waxaan rabnaa inaan isku ilowsiino dhibaatadan iyo silican uu shacabkeena ku jiro inaan isku ilowsiino kolka xanuunka u nawada haya qaarna way dareensan yihiin qaarna ma dareensana inta u badani ma dareensana xanuunkan kolka walaalayaal waa xanuun ku dhaca jiilba jiilka ka dambeeyana la isqabasiyo waa la iska dhaxlaa wuxuuna ku dhacaa xanuunkani dadka gumaystuhu soo maray cabsi xarig dhagar dadkoogii oo la laayay aabayaashu dhabarka laga toogtay hooyo kasta laga ooyisiiyey ilmuhu wuxuu ku dhalanayaa tafiir jiilba jiilka kasii dambeeya wuxuu ku dhalayaa xanuunkan oo ku jiraya ADN-ta marka wataa waxa keenaysa sababta inaan aflagaalada u doonano meesha aan ka helano xog horumarna keenaysa amba xorriyad noo dhalinaysa amba fikir maskaxdiina naga dhaqaajinaysa meesha aan ka heli karno ma cararayno waxaan u cararaynaa halkan beenta laga wadiyo aflagaadada dadna way ka dheefayaan in caan ka noqdaan oo waa lay daawadaa iyo ana xogta keeni iyo ana maxaa dad badan dhageystaan waxaasi ku mashquulsan waa calooshood la ciyaar waa dad aad loo jilciyay maskaxdoodii IQ-ga uu liito marka aad lagu jilciyo IQ-ga uu dhacaya wax kale kuma fikirisi noolo bas oranaysa kulka kuwa waxaan leenahay war xishooda wiil iyo gabdhaba ka tihiinba ilaahina u soo noqda waxa ummadda wax u roon u hor imaado ciyaalnimadina caruurnimadan u talisku ni soo tuurayo amba si toosa ama si dadban uu nigu soo tuurayo ka tago oo ilaahina ka baqo dib u soo noqda ayaa leeyahay ilaahina dacarhaydi ka dhigo shacabka reer Djibouti waxaan leeyahay wararka ku tirkutanaha la soo tuuray ha dhageysanina taliskani raggaa sawirka halka inii saaran iyo gabadha aad arkaysaan gebigooduba shaydaan bay la galeen dhaar heshiis la galeen gacmahooga dhiig ka daadiyeen ballana waxay qaadeen inay deer isku noqonayaan wada joogayaan xataa ubadkooga kuma kalsoona inay dhaxlaan waa ayo iskama dhex arkayaan waa taa waxa sababtay inay qof bedela ayna diyaarin marka ay midkood u dhinto wadku imaadana waa marka ay fashilmi doonaan taasina way dhowdahay waa waxay iyagu maleegayaan wax xumaanta halkay ka soo butaacdo laakiinse ilaahay kuma jiray shaydaan baa macooga ah
shaydaan ba u ka adkaaday oo u qurxiyey xumaanta ay wadaan walciyaadu billaah ilaahay baanu ka hoos galnay shaydaan iyo kooxdiisa iminkana ila dhegaysta sheekh derer oo ka hadlaya kooxda shaydaanka iyo munaafiqiinta wuxuu ilaahay ka yidhi خالدون وانت صار وحي عقاب لين وإلهي حصي يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم dadka waxaad u sheegtaa maalinku ilaahay adoomaha soo saarayo kuwan munaafiqiintana wuu soo saaraya munaafiq badowsana gaal nacasaysana ilaahay buu dhaar been isla hortaagaya markaa sidii nabiga iyo asxaabta ay ugu dhaaran jireen ama ummadaba dhaar beena munaafiq ugu mari jiray aakhira marka la soo saaray la yiraahdo maxay saas ku dhacdayna halkii buu ka dhaaranaya man shabba ala shay shaba alayh qofku hadduu wax ku barbaaro uu ku ciroobaa uu ku aakhiraystaa kolba wixii cimrigiisa lagu soo khatimay uu aakhirana ula dhaadhacaa shar iyo khayr munaafiqnimada casharku halka munaafiqnimo ugu joogay markuu ilaahay soo hortaagana casharkii xumaab halkii ka sii bilaabaya kama yaxlifuuna lakum billahi wax lala yaabay ilaahay baa ula dhaqmeen subxaanahu wa tacaala sidii adoomaha loola dhaqmi jiro kale way xasabuuna annahum calaa shayin waxay u haystaan inay xujo haystaan ay ku badbaadi karaan laakiin wax diinna ma haystaan daliilna ma haystaan dadnimana ma haystaan darxuma u dhan alaa wa xarfu tanbiih baraaruga buu ilaahay soo jeesto innahum hum alkaafiruun alkaadibuun wa intaasoo jeer baa ilaahay ku celiyay hadalkii waa si weyn baa loo baraarujiyay damiiru lfasli jumla alismiya intaasoo dhan waa mu'akidaad iyo tanbiihaat baraarujin ogaada oo ka ugu been badan waa munaafiq marka waxay ku dambaysan natiijadoodii waxa weeye istaxwada calayhim ash-shaytaanu fa ansaahum dhikra allah shaydaan baa marka istixwaadku waa inuu ka qaalib noqday waa inuu ka xoog batay rasuulku wuxuu xusay sala allahu calayhi wasalam dadka ku nool meel qaryada ama baadiye ah ee adaanka la iman waaya jamaca oogi waaya istaxwada calayhim ash-shaytaan shaydaankaa ka xoog badanaya أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون كواس وحرتي شيطانك إياكو حزبي سنا وكوا خسارة سين هرا سورة بلا وجد أو صح حسن الدون كباو حكون ناري وحزب الله هي حزب الشيطان